12 qof oo isugu jira dad rayid iyo sidoo kale ciidamada booliiska ayaa dhaawac ka soo gaaray isla markaana la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kadib markii isku dhac dhex maray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliland iyo dadweyne tiro badan oo gadoosan oo ka soo baxay garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium halkaasi oo galabta ciyaar xiiso badan ay ku dhex martay xulalka kubadda cagta gobolada Hawd iyo sidoo kale Daadmareed. ciidamada booliiska ayaa si weyn ula tacaalay iyagoo isticmaalaya sunta dadka kaga ilmeysisa iyo sidoo kale rasaasta caaga iyadoo la arkay kala fidhinta dadweyne tiro badan oo gadoosan oo hareeraha garoonka si weyn isku soo tumay kuwaas oo ku tuurayay ciidanka iyo dadweynihii kale dhagaxan iyo budhadh. dhawaaqa rasaasta caaga ayaa si weyn looga maqlay qaybo kamid ah magaalada Hargeysa waxaana dadkii dhaawac ah loo soo daadgurayay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. suuragal uma noqon warfidyenada inay gudaha hore isbitaalka u galaan si ay si dhab u soo ogaadaan xaaladda ay ku sugan dadka dhaawaca ee isbitaalka lagu soo daadgurayay. balse dhanka kale waxa warfidyenada goodhaweyd kula hadlay taliska guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka booliiska General Sareeye Guuto Cabdilaahi Fadal Imaan iyo wasiirka arrimaha gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanay faahfaahin ka bixiyeen sida ay wax u dhaceen. adigu gool labaad lagu dhaliyay Hawd taageerayaashu waxay si xamaasaysan u bilaabeen buuq marka buuq badan baa dhacay ciyaartooyada qaar baa iska casaaray inta markii ay dhacday shiid baa dhacay marka halka ciidanka booliisku oo ammaanka ilaalinayay waxay rideen gas mask ta ciidanka booliisku rideen dadku waxa dhacay waxooga istiira haddii aan idinka warramo sida la socoteen wasiirka arrimaha gudaha iyo aniga wada soconay maka iyo dad waayeela iyo dhalinyaro waxaanu soo wada maray isbitaalka gudaha Hargeysa waxaanu ku soo aragnay 12 qof oo shacab ah oo dhaawac soo gaaray dhaawacyadaas oo kala ahaa qaar la jiiday maxaan ku dhahaa qaar dhagxaan ku dhacday iyo dhowr qof oo xabad ah haday ciidanka booliiska tahay iyo haday tahay dadka shacabkaaba ilaahayna waxaan uga baraya booliisku waa 15 ayaa dhaawaca midxabad yahay ilaa 3 nin baa culus oo madaxu jabay yahay qolada shacabkaana 2 qof ayaa dhaawacoodu inkastoo khatar caynkaas si ahayn dhaawac lahaa oo dhaawaca oo waliba 2 gabdhood ahaa waxaan leeyahay markaa ilaahay dhamaantoodba haday yihiin shacabka iyo haday yihiin ciidankaba ilaahay u saalo waxaan halkan u sheegayaa in ciyaartu waa barmadow iyo barcad ciiduma laga badinayaa in ciyaarta la ilaaliyo oo ammaanka nabadgelyada la ilaaliyo waxaan halka shacabka reer Soomaaliland uga soo jeedinaya in ay ilaaliyaan ammaanka oo ay ka daayaan ciidanka ammaankooda ilaalinaya dhagaxa iyo dhibaatada marka hore u geysanayaan iyo waxaan hantidan ay baabiinayaan burburinaya ee shacabku leeyahay ama hantada ummadda oo qofka laftiisa muwaadinka ku socota intaana ciidanba u iman odayaasha madax dhaqameedka wax garadka inay u aqal celiyaan oo iyaga iyo ciidanka kala ilaaliyaan ayaan u soo jeedinayaa waxanka ilbaxnimada iyo ujeedooyinka laga lahaa qabanqaabada iyo abaabulka ciyaaraha gobolada ciyaarihii aynu abaabulay in lagu maaweelo laga dhigto in dhalinyaradeenu ay waqti wanaagsan ku qaadato in tartan iyo horumar iyo mataqaana xamaasad iyo horokicin dadkeena aynu ku gelino ayaa waxa loo rogay kuwa loo adeegsado rabshad iyo buuq iyo dhibaato la gaarsiiyo iyo hantidii iyo ciidankii dalka oo wax la yeeleeyo waa arrimo aad foolxumo ah badownimo ah ka tagan dhaqankii iyo ujeedooyinkii laga lahaa ciyaaraha iyo gobolada ee la abaabulay aad bay uga fog yihiin aad bayna ugu dhaliilan yihiin dadkii falalka ku kacay maanta ee waxyeelooyinka u geystay ciidankii u geystay hantidii u geystay dadkii wada noolaashihiisii iyo wada dhaqankiisii u geystay aad iyo aad bay ugu dhaliilan yihiin dhibaato badan baa dhacday isbitaalkii baanu tagnay waxaanu soo arnay booliiska iyo daadsan shacab u tegay meesha garoonka u tegay in ay waqti wanaagsan ku qaataan inay taageero u fidiyaan deegaanadoodii iyo ciddii ay taageereen iyo timamkii ay taageerayeen oo halkaa waxyeello badan lagu gaarsiiyey dad la jiray
dad dhagax laga dhacay oo wada dakhran dad xabada ku dhaceen yacni gaas maastaday debilaysku markii ay ku kala didinayaan ay ma aha markii ugu horeysay ee sidan oo kale rabshada uga dhashaan ciyaar dhex maraysa gobollo ka mida kuwa ku ciyaaray garoonka Hargeysa Stadium balse dhacdadan ayaa ay tii ugu xamaasada badnayd marka la barbardhigo isku dhacyo hore u dhex mari jiray ciidamada iyo dadka rayidka ee inta badan guulaha ay rajaynayeen inay kala caraabaan garoonka aanay suuragal u noqonin waxaanay mas-uuliyiintan si cad u bayaamiyeen inay sii soconayaan ciyaarahaasi isla markaana ay sugi doonaan amniga guud ee garoonka iyo hareerihiisa oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.